amaahda ka maqan kambaniga qaabka loo analyse gareyn lahaa oo loo qori lahaa. sidoo kale waxyaalaha kale mayka waxa la yiraahdaa account receivable lacagaha ka maqan shirkadda qaabka loo analyse gareyn lahaa oo aan u gelin lahayn. sidoo kale qodobka ugu dambeeyana waa account payable shirkadda lacagaha lagu leeyahay qaabka waxa way loo gelin lahaa quick book. saddexda qodob waa 13 ba 3 video waan ka kala dhigan doonaa insha Allah. marka video ugu horeeya hadaynu galno anagoo waliba tus oo kitaabsi ku dhameyn doona insha Allah. marka qaabka badaacada quick book loo geliyo macal halkaas tagaysa halkan waa file-ka marka rabto inaad kamid abuurto hada editor-ka wax ka bedelayso halkan waa view-gi halkan waa list-ki aan hadda taabanayna kan waa accountant-ki xisaabaadki kan waa company-ga dhan kan waa macaamiisha customers baa la yiraahdaa kan waa vendors waxa weeye dadka anaga waxa weeyaan aan macaamiisha una vendors-ka ama suppliers-ka kan waa shaqaalihi kan waa bangiga kan waa report-ka markaad rabto inaad diyaarsato aad ka fiirso kana waa waxyaalaha kale oo markaa jiray. marka insha Allah maanta waxaan rabnaa insha Allah inaynu fiirino list baan tagaynaa ila waxaan rabnaa item inaan xareyno item list baan leenahay. item list markaan daaqadana noo soo baxayso daaqadan baa weynaysiinaynaa kadib markaa weynaysiino waxa inoo soo baxday daaqad weyn name-ki magaciisa halkan ah description-ki type-ki accountant-ki total-ki sales-ki price-ki iyo attachment-ki inta baa soo qornaa. marka sa hadda u jeedo sales-keena wax maanta inoo ku jira oo aanu gadi karno maanta oo aanu haynaa ma jiraan. marka waxaan rabnaa insha Allah badeecadii inaynu soo aruursano halka soo gashano hadda wixii marka la iibsan karo wixii laga bixi karo iyadana muhiim. inta marka soo analyze gareyso ad list waxa weeye listigaas aad tagaysaa list marka tagto waxa weeyaan listigaas aad tagaysaa hadda maanta listiga waa joognaa kadib waraaqdana ku soo baxaysa waraaqdana way siinaysa halkan aad taabanaysa item halkan activity report excel hada wax marka wax ku nidaaminayso marka maanta item baa rabnaa inaan soo ku soo galno meesha gelin halka wax ku qoraynaa sidoo kale control plus n waa leeyahay new waa dhig ka dhawaa easy marka option badan buu leeyahay macallin daaqada waxa inoo soo baxday service inventory party inventory assembly iyagoo dhan waa sharaxaynaa laakiin inventory party baan rabnaa maanta insha Allah inaan ku dhufano inventory party ku dhufsanaysa kadib waxa ku soo baxaya waxa weeyaan item-ki magaciisa aad gelin wata hada ku soo sheegay item-ka rabto magaciisa quantity inta ka yaal cost uu ku fadhiyo inta aad ku iibinayso account-ka la gelin karo meelaha maximum-ka iyo minimum-ka inta wax ku yaalaan waxa soo dhan baa insha Allah lagu weydiinaya. marka insha Allah item-ka amaantu gelinayna maxaa waa item-ka aan maanta rabna insha Allah inuu galino maadaama Suldaan Product Company wax yahay company-ga aan ka ganacsano badeecada iyo product-ga waxa leena for example oo kale bur baan gelinaynaa burka waxa leena for example oo kale burku waxa weeyaan cost ahaan ama saa ula socono suuq ahaan costigu waa $13 waa haduu $13 yahay qiimo intee leeg ba marka gelinaynaa anagu maxaa kasbisanay halkan waxa weeye halka laba midba waa taal kan waa costigi kan waa sales price-ka adu waxa ku iibinayso for example waxa ku saarna for example $14 $1 baa inoo saaran sax halkan waxa way record point minimum iyo maximum waa ka tagi karaa laakiin halkan ugu muhiimsan oo waxa way inta badeecada ku taalo inventory ku yaal ma 100 xabba ku yaal ma 1000 xabba ku yaal ma 500 xabba ku yaal inta item baa ku yaal for example kala waxa leenahay 100 baa inoo yaal 100 haduu inoo yaal waxa leenahay minimum intee ugu yarba for example kala wuxuu leeyahay maximum iyo minimum wax leeyahay marka ay kaasi dhamaan rabto 100 xabbo oo burka ka 100 xabbo oo kiishka oo burka inuu ka dhamaado ku sheegay waxa leedahay for example kale 5 markuu gaaro leedahay ii sheeg sidoo kale waxa leedahay ugu badnaan markuu 10 gaaro ii sheeg uu ku sheegaya markuu leeyahay 10 baa haduu soo gaaray 4 waxa way 9 6 7 ilaa uu 5 gaaro markasta uu ku sheegaya hadda halka waxa moodaa totalkii inuu halkaas isku dhufsaday oo waxa way total value-gan xagee ka keenay total value-ga wuxuu ka keenay cost of handing ama total in handing wixii aad haysay oo kunka xabba aha kunkan xabbo waa tiradii meesha taalay oo waxa weeyaan 100 kiish aha 100 kiish buu wuxuu ku dhuftay costigii marka laga siinayo marka waa 2300 saas uu soo qoray marka asaga totalkiisa iyo wixii isku dhufsaday sidoo kale halkan account waxa la yiraahdaa income account waa la yiraahdaa ama income account-gu waxaan galay for example kale account-ku wuxuu galay sales asaga noo saaray salesna wuxuu yiri waa meeshii aan gelin lahayn inta hadaan galino oo aan okay dhahno maxaanu ka filaynaa balance sheet-keeni awal 00 buu noo ahaa kankii ka horreeyay waxaan soo dhignay bangiga sida waxa weeyaan company-ga loo abuuray kaliya maanta bangigeeni ama waxa weey report-geeni waa isbedelaya balance sheet-keeni laakiin kan aan isbedelan waa income statement-iga oo wax maana soo gadan laakiin wax aan xarayn good
haddii aan halkan waa okay iyo cancel iyo next intaba waa leeyahay marka okay waan iska leenahay si waxa weeye anoo report